laba malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa deedna way soo fadhiisinayaan waxay weydiinayaan saddex su'aalood man rabbuka man nabiyuka maa diinuka rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa ayaa ku rabbaynayey ayaa ku arsaaqaayey ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay ayaad baahidaadiiyo baryadaada u sheeganaysay man nabiyuka nebigaagu ayuu ahaa mucallimkaaga ayuu ahaayo ayaad dhaqan iyo maaragtaane iyo nolosha ku dayashadeeda ayaad kaga dayanaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo caabuday ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo yaqaanay ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelinayay ee adduunka dusheeda nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo sunnadiisii la yimiday waxau odhan doonaa rabbigay waa allaah diintayduna waa islaam nebigaygii waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii ilaahay buu odhan doonaa kanaad i weydiinaysaan waa rasuulkaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa yuhabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allaahu aldaalimiina wayafcalu allaahu maa yashaa ilaahay casa wajalla dadkii mu'miniinta ahaa ee adduunka dusheeda ilaahay kaga soo cabsan jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku baryi jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelin jiray dariiqa nebiga soo raacay ee diintooda islaamka intay barteenna ku dhaqmaya ka shaqaynayey saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa u fudaydin doono ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi leanna su'aalaha mu'minku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaayoo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaado u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa halkaa jannadiisii ha ka daawadee deedna qabriga dhexdeeda mu'minku uu ku seexanayaa jiifka qabriga dhexdeeda mu'minku maalinta uu ku jiifsado maalinka waa beriga qiyaamaha unbuu qabriga ka soo baxayaayo ogaada halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiye wuxuu ku jawaabi doonaa laa adri laa adri kama warqabi buu leeyahay deedna markaasaa la odhan doonaa laa darayta walaa talayta walaa htadayta ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey ilaahay xaqa kama dhawaajiyo ilaahay dariiqa xaqee mustaqiimkana kuguma hadeeyo laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo malaa'igtu madaraq xadiida ayay wadaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu 70 xusul buu dhulka quusayaa ayuu galayaa deedna inta uu ka soo baxayana madaraq ay soo qaadanayaan way ku celinayaan cadaabkiisa ilaa qiyaamaha waa sidaasuu rasuulku yidhi marka cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo walaalayaal qofka waxa soo socda aanan ogeyn waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan waxa joogana maanta ma garto labadan indhood ee kugu taalla ayatuha almuslima labadan indhood ee kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego in la aakhirada ku eego meel dheer ka fikir oo ilaahay caza wajalla ha halmaamin annaasu niyaamun waidaa maatuu intabahuu dadku way hurdaan maanta way hurdaan goormay jeefkii hurdada ka kacayaan maalintay dhintaan ee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa laa qabiil baa ku raaci walaa ubad baa ku raaci walaa dhaqaalaa ku raaci walaa siyaasad baa ku raaci walaa jaamacaddiiyo dibloomkaad diganaysay baa ku raaci walaa aqalladaad dhisatay baa ku raaci aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaa ee dhisay ee soo asaasay may cidba kama noolo maanta halkaa iyakuba ay mareen baan innakuna ay mari doonaa marka adduunyadan inta aan joogno 60 sano 70 sano layna soo siiyey ilaahayna abuuray han caabudno oo ilaahay ha ka cabsanno oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal nolosheenna adduunyada ku barakoobi walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaagay farayna ay la yimaadaan oo ilaahay ka baqaan oo macsiyadda xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan oo cadaabka ilaahay daba socda ay kaga baqaan barakaatu samaa'i waalardi baan u furaynaa baa ilaahay yidhi maxaa maanta ummaddeennu marna la qaxaysaa marna la cabsoonayaan mar abaar inoogu dhacaysaa mar qaxooti u noqonayaan wax kale maaha walaalayaal waa dunuubta innaku aan gaysannay weeyaan wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir
ilaahay baa qur-aanka inoogu sheego oo leh adduunka korkeega intaad joogtaan balaayo iyo masiiba inaguma dhacdo ilaa balaayo iyo masiiba hadday nagu dhacdo waa waxaad gacmihiinna ku geysateen baa ilaahay yidhaahdaa inta badanna waaba naga cafinaa baa ilaahay oo naguma soo celino cuquubadiinna ilaahay waa raxiim waa naxariis badan yaho ilaahay uu noo naxariistaa mar walba oo raxmaddiisa waraxmatii sabaqat qadabii inna raxmatii taqlibu qadabii waraxmatii wasicat kulla shay aabbaheen aadam calayhi assalaam markii suuraddiisa la sawiree la joojiyey ee ruuxda lagu afuufay baa la yidhi indhaha wuxuu ku hayay baa la yidhi carshiguu eegayaa la yidhi wuxuu arkay aayadda qur-aanka oo carshiga ku qoran aayaddee waraxmatii wasicat kulla shay ilaahay baa la naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaadhatay baa ilaahay yidhi ilaahay waa raxmaan waa raxiim waa ghafuur waa shakuur waa cafuw waa kariim waa xaliim waa sataar bal magacda ilaahay eeg waa raxmaan adduunka inta la joogo waa ka naxariistiisu khalaa'iqdoo dhan ay gaadhay ee gaalkuna naxariistiisa uu ku seexanayo ee gaalku dhalayna maaragtana naxariista ilaahay roobku ugu da'aayo ee gaalka dhalayna uu nabadgelyada ugu ciyaaraayo ee gaalku uu dhalayna biyaha uu ku cabbaayo ee gaalku uu dhalayna hawadii oksijiinka uu ku helaayo waa raxmaan ilaahay caza wajal araxmaan الرحمن سقال يا سقاشك مقع إلهي مقع اسم الذات مويانا مقع اللباد السفوي كحيقا الرحمن بلغ بلاد الرحمن وكان رحمة دي سعالم كودنا أي وذقادي بقولنا حريصة إلهي جل وعلا أيو أبو ريب النبي قيلي هل رحمة أدوك إلهي أسودا دعيي سقال يا سقاشك كلنا مالك قيامها أيا إلهي أدكتو أدوميهيسا مؤمنين إلهي قلنا حريصا دون أبو رسولك صلى الله عليه وسلم hal naxariisa ayaa khalaa'iqda adduunka oo dhan deeqday oo gaadhay oo hooyadu ilmaha ugu naxariisanaysa oo libaaxu ilmihiisa ugu naxariisanaya oo dhurwaagu ilmihiisa ugu naxariisanaya oo bisadu ilmaheega ugu naxariisanaysa oo ayadu ilmaheega ugu naxariisanaysa oo shimbirtu ilmaheega ugu naxariisanaysa hal naxariisa adduunka oo dhan gaadhay walaalayaal 99 kale waa maxay waa naxariista ilaahay maalinka qiyaamaha addoomihiisa muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka ilaahay ugu naxariisan doono weeyaan bishaaro bushay haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku